waxaa maanta ka dhacday xarunta gobolka Togdheer xaflad si heersare ah loo soo agaasimay oo xilka kula kala wareegayeen maamulkii hore ee gobolka Togdheer iyo maamul u dhawaanta soo magacaabay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo taasi oo ay ka soo qayb galeen ururada bulshada rayidka uqaal culimo oo diin guddiga horumarinta gobolka Togdheer maamulka gobolka Togdheer iyo maamulka degmada gobolka Togdheer maamulka cusub ee u dhawaanta soo magacaabay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo madasha ayaa waxaa soo camiray dhalinyaro aad u tiro badan iyo qurbajoog kuwaasi oo isha la raacayay sida ay xilka ula kala wareegayaan maamulkii hore ee gobolka Togdheer iyo maamulka cusub ee u dhawaanta soo magacaabay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxaa halkaasi ugu horeyn ka hadlay gudoomiyihii hore ee gobolka Togdheer Jaamac Cabdullaahi Biin Warsame waxaana uu ku dheeraaday waxqabadkiisii intii uu xilka hayay muddadaasi oo gaadhaysay 3 sano iyo badh waxaana uu sheegay inuu wax weyn ka qabtay dhinaca ammaanka iyo weliba abaaro markaasi ka jiray gobolka Togdheer iyo laftigeeda oo ay halkaasi ay ka jireen biyo la'aan aad u baahsan oo guud ahaanba markaasi saameeyay gobolka Togdheer waxaana uu gudoomiyihii hore ee gobolka Togdheer Jaamac Cabdullaahi Biin Warsame kula dardaarmay inay gudoomiyaha cusub iyo gudoomiye ku-xigeenka ee la soo doortay ay wax badan ka qabtaan dhinacyada ammaanka oo uu sheegay inuu isla markaasi awoodda saari jiray sidoo kalena gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Togdheer Guuleed Daahir Samatar oo isaguna halkaasi ka soo jeediyay hadallo isugu jiray kaftano iyo dardaaran ayaa waxa uu sheegay inay maamulka cusub ee loo soo magacaabay gobolka Togdheer ay si hagar la'aan ah wax uga qabtaan arrimaha nabadgelyada iyo waxyaabo kale ee hor yaalla kuwaasi oo aanu haatan ay ka mid ahaayeen in wax badan laga qabto arrimaha bulshada oo uu sheegay inuu gobolkan aad uga liito dhanka kalena gudoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer oo hadalka qaatay ayaa waxa uu sheegay inay maamulkiisa uu dhawaan la soo magacaabay uu wax badan ka qaban doono arrimaha gobolka Togdheer isla markaasna uu xoog ugu badan saari doono arrimaha nabadgelyada oo uu sheegay inay yihiin mid muhiim ah isla markaasna loo baahan yahay in wax laga wada qabto waxaana uu shacabka Togdheer ka codsaday inay si weyn ugala shaqeeyaan arrimaha nabadgelyada iyo arrimaha kale ee uu maamulku u baahan yahay waxaana uu xusay in haddii aanay dadka gobolka Togdheer la shaqeynin aanay waxba ka qaban karin arrimaha nabadgelyada iyo arrimaha gobolka Togdheer labadaba dhanka kalena gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer ee cusub ayaa maruu hadalka qaatay waxa uu halkaasi ka soo jeediyay hadallo isugu jiray mahadnaq iyo hambalyo kuwaasi oo dhammaantood ku koobnaa dadkii madasha soo buux dhaafiyay iyo weliba dadka gobolka Togdheer uu haatan mas'uulka ka noqonayo Cabdi Daahir Xasan Waraabe oo isagu halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay ayaa waxa uu ugu horeynba u mahadnaqay guddiga horumarinta gobolka Togdheer iyo maamulkii hore ee gobolka Togdheer oo uu sheegay inay wax badan ka qabteen arrimaha gobolka isla markaasna loo baahan yahay in bartaasi laga sii ambaqaado maamulka cusub ee gobolka Togdheer ayaa ballan qaaday inay fulin doonaan waxyaabihii uu xisbigooda ololaha ku galay waqtigii lagu jiray campaign-ka ololaha taasi oo xisbigoodu ballan qaaday waxyaabo badan oo muhiim ah gobolka Togdheer taasi oo sababtay inuu markii dambe xisbigooda ku guuleysto talaada wadanka isla markaasna codad tiro badan ka helo gobolka Togdheer